صاحب يلا ما انت اد بقى سلامي sanadkii kaliya waxa ka dhiman 4 bilood ha waxa galna September quarterka u dambeeyay sanadka 2025 by the time la gaaro January 2026 taashu u horeyso oo la rabo inaad ka jirto waxa weeye maxaa ku qabsoomay sanadkii 2025 طبعا normal dadku muuqaalada waxa duwan motivationka ah December dhamaadkeeda ayagoo ku dhahay sanad cusub la galaya mar dhow 2026 shan biri baa ka dhiman ama laba biri baa ka dhiman hadda gool sameeyso aniga waxaan ku leeyahay 4 bilood waa 4 bilood oo muhiim ah xitaa social media intiina la socota update waxa la bilow challenges waxa la bilow updates bedelo qof kasta bilaaway sifo uga faa'iideysa xabiyaal 4 bilood yes marka saaxiibayaal maanta waxa rabaa muuqaal aan wada sheekaysan inaan meeshan kula wadaago koobkaashaha soo qaado dhowr qodob muhiim ah baa kula wadaagaya baaditaanka gaar 2026 ina iimaad celisa laga yaabaa soo kofeegaaga soo qaado saaxiibayaal marka la soo dhawaado dhowr qodob baan rabaa inaan kula sharxo qodobka u horeeyo kulligiin waa naqaanaa dabcan waa diinta iyo cibaadada ka dabcan laga ma dulboodi karo qofka haduu hagaajin xiriirka asaga Ilaahay ka dhaxay dabcan waxba uma hagaagaya marka waxaan kugu talinayaa horta qodobka waxa weeye salaadahaaga inaad iska diyaarisid macala sunnahooda aad ku dirtid ducada inaad xoog saartid oo waliba sanadii u dambeeyay aniga aan bartay ducada waa sir ducada saaxiibaha laga faa'iideysto waa si toos ah Ilaahay oo la hadlaysa amuurahaaga weydiisanaysa ducada laga faa'iideysto tan saddexaad saaxiibaha waxa waa adkaarta iyo dikriga iyo tasbiixda iyo saliga nabiga arimahaasna xoog la saaro sid baa idin sheegaya waxaan arkay mataqaanaa tasbiix counter farta lagu xirto sida frantiga bahalka saaxiib Amazon lacag ku yaala iska dalbo adoo gaariga wato adoo shaqaysanayo adoo bahalka wato fartaas buu jira oo ku xasuusinaya macna si fudud ku xasuusinaya tasbiixda maalinka waxa laga yaabaa 5,000 inaad rogtid ugu yaraan 2,000 maalinka muusid inaad rogtid dadka qaar 10 bay rogaan bahalka marka aniga wax badan baa ku arkay saaxiib wax badan oo ka faa'iido asxaab badan oo kula taliya adigina hadoo kula taliya damoor asaliga nabiga tasbiix istighfaarta basi waa damoor saaxiib yaal iyo wax kasta aad jeceshahay ku hagaag xitaa waxa dhibsanaysa problem ku haysto ama caafimaad ama career dhibaato ku haysto Ilaahay ka dul qaadaya ugu dambeyn saaxiib qodobka ciidada laba qodob baan ku soo gabagabeynaya waa wax way sadaqada Ilaahay xooluhu ku siiyo wax ka bixi Ilaahay wuu ku barakeynaya damoor wax xoolaha dadka baahan siisid waliba dadka ku wadiisto masaakiinta oo baahan dabcan waxa weeye xoolaha wax ka sii waliba bil kasta waxa ugu talagal inta awooddaada $10 $15 $20 $50 dadka waxa weeye qaraabada kama hadlay dadka waxaan ka hadlaya masaakiinta waliba social media wax ku arday dad baahan oo masaakiina oo mataqaana rafaadsan ama dad xanuunsan waa fi wada ugu dir hadaa awoodina meelaha joogta dadka masaakiinta wax ka sii qodobkan ugu dambeeyay saaxiib waxa dhanka cibaadada waxa weeye waa cimrada silba idin sheegaya irsaaqada waxa ballaariyo waa cimrada saas oo kale muuqaal aan daawanayay 3 sano ka hor taas oo kale qof YouTube aan waliba ka daawanayay soo kay cimrada irsaaqada bilaa marka waxaan kugu la talinayaa hadii aadan cimraysan cimrada iska aad sanadkii hal mar labadii sano hal mar saddexdii sano wixii adiga awooddaada sameey normal aniga waxa sameeyaa sanad kasta mar baan aadaa waliba xiliyada sanadka dhamaadkiisa aadaa si sanad kasta bilowgiisa yaano refresh ah oo iimaanka iiso buuxsamay waxa way magaalada Madiina tagay magaalada Madiinana waa very calm magaalo aad u degan qabriga nabiga ku yaala sallallahu alayhi wasallam imagine magaalada nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu ku aasan yahay hadii aad saxatid raxmadda iyo naxariista iyo hurdada kaas oo dhacayso wala dadka xitaa Madiina jooga runtii waa dad aad u wanaagsan marka waxaan kula talinayaa meesha aad Madiina tag Makana tag dhulkaas waa dhul aad mataqaan u barakaysan very historiga wax badan baa ku yaalo taariikh badan baa ku yaalo siyaabihii asxaabta oo noolaayeen iyo diintan waxa weeye loo soo jimaaday in yarba waxa ka qaadanaysa break dunida markaan meesha tagtay xitaa go'aamo kala laga yaabo noloshaada waa weyn meesha ku qaatido oo ama taqaan dhanka diinta inaad isku hormarisid yaala badan ka faa'iido okay qodobka waa ka gudbay aad baa laga badiyay arrimaha diinta adinkaan waxa weeye isxusun bay qodobka labaad waxa weeye aad iga sugaysaan waxa weeye waa skillska iyo xirfadaha 4 bilood waxaan kugu la talinayaa saaxiib in aad xirfad baratid marketplace-ka waxa abaal mariyaa dadka xirfadaha iyo skills kale dadka xirfadaha la maanta saaxiib ayaga loo baahan yahay dunida saaxiib waa la hormaray 2026 mar dhow la galaya qofka skill leh waxa gooniya maxaan kugu la talinayaa marka in xirfadahan barato coding program computer program language waa muhiim saaxiib yaal in aad baratid qasab maaha baana kuwaan soo wada mid un door adiga kulli master kuma noqon karto laakiin mid kamid ah master waa ku noqon kartaa waa laga yaabaa waliba 4 bilood ilaa iyo 6 bilood master man baa ku noqon karaa skillkaasi business ka bilaabsan soo waxa kugu la talinayaa saaxiib inaad barato coding xitaa adoo jaamacada dhigto galka dama garaa computer program language ka bar waa muhiim weey waxa barta mataqaana cryptocurrency waad baran kartaa investment iyo trade muhiim weey sanadahan cryptocurrency iyo blockchain waa isku qaadi labaas muhiim weey dhanka financial inaad barto investmentiga iyo saving guys way kala duwan dadka wealthiga tujaarta ah waliba reer galbeedku badan siriya ku taajina waxa kamid waa maalgashiga weey $1 ah bangi hadda gashtay 2 sano kadib $1 ahana waliba asoo sicir bar ku dhacay oo liito ku soo baxaya laakiin $1 ah cryptocurrency gashatay gaar ahaan BTC Bitcoin waliga ka shakinin laazim waxa ka faa'iideysa waxa ku xiranta xilliga aad gelisay waliba xilliga hadda aan idin la hadlay saaxiibayaal waa bilin September iyo August la soo dhaafay aad buu u liitaa suuqa good entry way if you have been looking at good entry the right time way laga faa'iideysto by the time la gaaro waxa way January dadku waa ka faa'iideysanayaan faa'iidada bay ka qaadanayaan marka waxaan kula talinayaa crypto inaad bartid soo marka forex-ka waad baran kartaa ayada muhiim skill
ina baratid waxa baran ka saaxib cilmiga loo yaqaan drop shipping hada qurbaha ku noosha waliba aad ku fanta ina baratid iyo guudaha saaxib yaal e-commerce sida calababa looga soo adeego website xitaa leedahay adaa furan karo you don't have to ina drop shipping bilood hada Africa meena joogtid website leedahay bad furanaysa China ka soo aamajay marka waxaan kuula talinayaa inaad China tagtid ganacsi suuq mi hal product hadii aad soo yeesho kamarada hadii iga daawanaysan kala hadii aad soo yeesho waa soo expo galeen ka dadka Kenya jooga xalan wax u soo adeego alaabta imaaraadka loo keenay waa qaali soo marka adiga toos alaabta ugu soo dhoofin ka dhaa middleman ka dhex ka saaraysa adiga middleman noqonayo hal gacan ayaga two middleman way marka dabcan skills ka laga faa'iido waxaan ka wada saaxib yaal waa e-commerce waa duni aad u balaaran saaxib yaal waa market weyn sidoo kale waxa jira saaxib skills yar oo qof kasta muhiim inta inaad taqaan tusaale kale waxa kamid ah video editing maanta dunida saaxib waxa lagu tamiya waa muuqaal waa ma taqaan waa visualization waxa la arki karo oo qurux badan business kasta saaxib yaal maanta waa laga maarmaan qof u qaabilsan video production ka iyo video editing ka iyo photo editing marka waxa huwa la taniya xirfada waa bilba ku baran ka sanadka waxa huwa taniya inaad naftaada maal gashto waxa ugu fiican qof sameeyo horta waa inaad naftaada maal gashto xibbo adiga xirfada baro skills baro buugado audible ma taqaan akhriso gymta aad mindset kaaga badal business ka daxis ma taqaan business ka gal lacagta $100 koorsooyin iyo shirar iyo buugaag adiga isku celin waxaana ku balan qaaday in lacagta dib kugu soo laabanayso wali ayadoo malaayiin business idea laga yaabo in kugu jirto marka talent adiga waan siinaya adiga horta naftaada maal gasho naftaada xaq bay kugu leedahay inta lacagta dhul gelin ama meel kale gelin adiga ismaal galay marka business sameeysid in ka fiican ku soo galo 9 to 5 kan u goysid marka guriga dhiso boosas dhiso dabcan waxa way dunida ma taqaan inta noolaalisa mug laakiin marka adiga si sharaf leh u noolo way ood ka raadi 9 to 5 yadan kala bax marka ka soo saaxib video editing waxa jira skills ka ma taqaan loo yaqaan graphic design oo muhiim tahay na photoshop iyo arimaha aad ku fiican in kasta ma taqaan AI soo baxeen sidoo kale waxaan kugula talin inaad xoog saartid AI da garaadka macmalka artificial intelligence waa meesha dunida saaxib yaal u sida loo meel baa focus ka saara by the way waa AI iyo blockchain crypto iyo arimahaas ku dhex jira waa industry kaliya hada aan xoog ugu dhex jira saaxib yaal wax badan ka sameeyay soo marka waxaan kugula talin AI da adigan inaad xoog saar business ka hada wuxuu raadinaysaa ma taqaan AI automation inuu ma taqaan sameeyo taqaan su'aal ma taqaan chatbot ka inuu sameeyo website kasta uu sameeyo inuu automation kasta social media postiyada wax kasta uu sameeyo soo waxaan kugula talinayaa in aad maalgashto dhalinyarada jaamacadaha mid baa laya dhalinyarada jaamacadaha ku jiro oo 4 sano 3 sano ay rabaan in degree soo garacaan waxaan horta kugula talinayaa in aad IT ga xoog saartaan skills gaar ah in xoog saarto xitaa adoo jaamacada aadayo in ma taqaan skills abartid hadii xitaa jaamacada aad u goon karto in aad u goosid Hindiya Malaysia China intee aad koorsooyin hada wax sax professional certificates 6 bilood sanad socdo skill dhanba soo laqaysa shaqooyinka ugu badan baa haysanaysa afar sano kadib hadii aad jaamacad dhamaysid hadana la wala aad tahay oo shaqayn stress waxa ka fiican qof inuu hal sano skill la yaqaan intuu barto xitaa darteed jaamacada u aad ama online ka baro ayadana waa idin kula talinayaa saxbiyaal dhaga wali computer programming language IT ga xoga ee hala saaro AI iyo blockchain ka xoga hala saaro inta qofka xoga saara suuqa dhulka ma dhacay hal boos uu soo qordho waxa sabartay waa huba in lagu marketplace kan soo u banaan yahay waro inaan ku sheego waa pro ocean marka ina hadda maalgashid baa laga rabaa waqtiga ina ka faa'iido baa laga rabaa dabcan laba qodob hadda soo sheegnay arrimaha diinta aan ka soo hadalnay iyo arrimaha xirfadda tan u dambeysana saaxiib waxa weeye waa arrimaha caafimaadka ku saabsan sida firfircooni waxa hadda ku sheegay hadii aad jirkaaga active ahayn jirkaaga saaxiib yal haduu u firfircooneen meel badan ma gaartay marka waxa isku daydaa in activity marba aad samaysid soo kale ina gymta aadid ama swimming pool aadid ama orod aadid ama hatta jogging aad samaysid hiking aad samaysid baaskiil aad wadid adiga at least 3 times per week ina jirkaaga uu jimicsado waxa ka anfacaysaa firfircooni qof iska fadhida hadii aad tahay aqligaaga iyo maskaxdaada ma fakshan gareynayaan ma fakiraysid creativity baa ka dhumaya productivity uu ka yaraanaya mar haduu creativity iyo energy yara soo waxa isku daydaa in aad jimicsatid sifa ma taqaana aad maskaxdaada wax saar u soo laato inta jimka joogtid podcast-iyo ku anfacayo inaad dhagaha gashatid dantaada raacatid adoo aalmeeteynaya hadana podcast dhageyso audible ama ma taqaana buugta audible ka akhriso buug gasho tan kala tahay waxa weeye dhanka cuntada in la iska hagaajiyo cuntada waa muhiim in iska hagaajisa marka waxa laga rabaa in cuntada aad iska hagaajistaan waxa dhahan you are what you eat waxa cuntid baa tahay marka make sure cuntada cunaysa in dabcan waxa kugu sheegaya in ay jirto way oo aan ahayn shaqooyinka kale kaliya in u baahan dadaal inta aan ku sheegay hada saddexdan ku sheegay cibaadada ku dadaashid xirfado fiican aad bartay caafimaadkaaga iyo mindsetkaaga iyo caqligaagana aad kobcisid waa huba saaxiib fikrad baa la imaanaysa idea la imaanaysa internet baa noqonaysa business baa bilaabaysa ama dad baa la galaysa ama adiga fikrad bilaabay ugu dambeyntii hal bonus oo muhiim ah raba in ay siiyo in la isticmaalo social media content creation hada awoodid in aad soo gashid content creation qaab badan baa loo soo galaa you could be YouTuber Facebook TikToker camera isticmaalaysa muuqaalada soo gelinaysa oo sameeyay or blogger aniga at same time blogger waa ahay dadka aan rabin in wajigooda la arko dad badan oo okay ustaad marna wajiga la arko kale dadka waxa kula talinaya in ay blog samaystaan blog samayso article soo qor mataqaan newsletter u sameey dadka hasal iska bagarayaan project kan u dir ama sawirada xitaa wax ka qayb qaadan kartaa marka muuqaalada lagu tartamaya maan saaxiib yal waxa loo baahan yahay naftaada inaad market gareysid oo waxa la personal brand inaad samaysta in adigu naftaada market gareey maanta loo qashido cidna ku baran waa saaxiib yal maanta inaad technology-ga xoog ka gaartid laakiin hadii macnaha content creation ku
kusoo burtay fursadaha badan iyo community wasminsa soo waxaan kugu talinayaa haddana bariga hore social media laga cabsan karmaan subscribe xilliga mataqaana laga fakar jirmaan algorithmka YouTube-ka wuu isbedelay algorithmka TikTok warkiisa asaga shaka dheer wax quality hadii aad soo gudbisay adoo zero subscribe muuqaalada waa la daawanaya arrimaha waa laga faa'iideystay waxaan kula talinayaa marka content creation galisi waxba business ha bilaabin ilaa iyo first 6 months wax business ha bilaabin dadka value ay arkaan dadka qiimaha ay arkaan muuqaalada tutorialka bilaash ka dhig later 6 months kadib dadka marka ku bartaan potential customers ay heshid potential mataqaana subscribers fiican ay heshid markaas business ka asleeda in upload mimi waxaan sidoo kale talinayaa YouTube in aad ciyaar u gelin aad business mindset u gashid 2016 saxba YouTube hadii la gaaro isbedel weyn baa la sameeyay YouTube waxa la rabaa in laga dhigo in mataqaana TV-yadii waxa la qofka soo galo muuqaal dheer xataa aad u xisay in muuqaal soo gasho dadka soo bad galaan subscribe kaaga noo maata asaga bushkareynaya as long waxa way aad wax quality ah soo gelinaysa soo marka business mindset hadii aad ku soo gasho fursad haysa habaqin dadka kamarada soo galo marka hore adiga soo dhis xirfadii hadda aan ku sheegay soo dhis 6 bilood skill soo laq meesha marka imaanaysa adoo diyaarsan value leh dadku waxa ku soo kordhin karo meesha niche aad dooratin wax ka keeni karo dadka la imo later business blow dadka ugu soo xubin waa ka adeegan qaabkaas ma runtii waxa way baa loo bilaabay aad buu fadaa strategy markii iska xadan kaliya 2026 hays aylin afartan bilood ka faa'iideyso December baa ugu soo laabanay dhamaadkeeda haddana sanadka cusub baan ka soo hadla doonaa laakiin qofkii hadda afartan bilood ka soo faa'iideysta asoo wax macna la December ama program dhaxda u marayo ama xitaa bilaabay ama dhameeyay baan rabaa inaan isku nimaano aad baan saaxiibay in salaamaya ciao ciao